سريقاس عبد الولي جامع قرية تلياع عيدن كحوق دالك الصومالية مقالة مقدشة تبابر وسو حري عيدن ما كترسن أورك الاحتلال إلالada madaxtooyada qaranka kaasi oo u socda muddo 3 bilood ciidamo gaaray ilaa 100 askari munaasabada xiritaanka tababarka oo ka dhacday xarunta madaxtooyada ayaa waxa ka soo qayb galay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya wasiirka xigeenka gaashaandhiga iyo agaasimaha xigeenka madaxtooyada Soomaaliya taliyaha ururka lixdanaad ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee ilaalada madaxtooyada gaashaanle Odawa Yuusuf Raagi ayaa ka warbixiyay ciidamadani iyo tababarka ay qaateen waxa halkan tababar nooga socday oo uga socday dufadii afaraad ee kamid ah ururka lixdanaad ee ilaalada madaxtooyada qaranka muddo 3 bilood ah runtii tababarkaas waxa juhdi badan ku soo bixiyay madaxda ugu sareysa ciidanka hogaamada iyo dhammaan qaybaha kale ee kamid ah hogaamada ciidanka iyo saraakiil ka tirsan ururka lixdanaad intaba iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida xeer ilaaliyaasha runtii tababarkaas taliye waxaan soo wadnay anagoo gacanna ku wadna muxuu ahay ii sheeg waajibaadkii noola shaqadii noola idmaday gacanta kalena waxaan ku wadna tababarka si aan u noqono dad fahmi kara waajibaadka loo idmaday iyo shaqooyinka loo diray in muddo ah noo soo socday maantana waxaan soo gaarnay waqtigii gabagabadii tababarkeena agaasimaha xigeenka madaxtooyada Aamina Saciid Cali ayaa ku tilmaamtay ciidankan inay yihiin kuwa ay ka muuqato mas'uuliyad heer sare ah xaqiiqdii waxaan aad u farxaa markaan dhowjid oo magaalada aan marayo oo markaan soo gaaro meelaha ay ururka lixdanaad taagan waxaan dareemaa inay magaalada oo dhan iga sokeeyaan sababtoo ay tahayna ma aha inay aniga markay arkaan ama ay soo dhaweynayaan ama ay fududeynayaan inaan jidka maro akhlaaqda wanaaga ay dadka ula hadlayaan muraadahan xitaa waan fiiriyaa waa idin fiiriyaa sida dadka aad ula dhaqmaysiin marka aad baan ugu faraxsanahay in aan dareemo akhlaaqdiina iyo wanaagiina aad shacabka Soomaaliyeed kula dhaqmaysiin inuu aad u sareeyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Cabdi Wali Jaamac Gorod oo tababarka soo xiray ayaa si aad ula dardaarmay ciidanka loo soo xiray tababarkaani siyaal hore meeshii la joogay maanta lama joogo in saatan kala ciidan u soo labistaan oo tababar ay qaataan oo tababar loo xiro sanado ka hor wax laga yaabeysan jiray sanado ka hor aysan jirin oo waliba dalka gudihiisa ay ku qaataan hadda waa arkaysaan ayagoo meel walba ka yimid oo gobol kasta ka yimid oo Soomaali ah oo isku dhar qaba oo isku darajo qaba oo isku meel wax ka cunahaya ayay wada joogaan oo u socdaan inay muxuu ahaa maantay ay gutaan waajibaad qaran inay gutaan waa la sheegay waxa la yiri ciidanka madaxtooyadu ciidamada kale waa inuu ka bedelaada sababtu maxay tahay sababtu ka bedelaanaya maxay tahay madaxtooyada baa la yiri waa bil Soomaaliya xukuumad madaxweynaha baa fadhiya dawladda oo dhan baa imaanaysa ajnabiga oo dhan baa kasoo dhulbilaabaya ama waxa weeye waa loogu tagaa meelahooda waa la kulmayaa waxa kaliya la fiirinayaa askarigaasi sida uu dhaqmayo ciidanka ilaalada madaxtooyada oo ah urur ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa inta badan qaata tababaro joogto ah kaasi oo qayb ka ah dhismaha ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kobcinta aqoonta ciidanka ee ilaalinta madaxtooyada Soomaaliya موسى محمود شيسو اريال تي في مقدشو